iyadoo si weyn loogu diyaar garoobay caalamka islaamka sagootinta bisha barakaysan ee Ramadaan iyo soo dhaweynta munaasabada Ciid al-Fidriga oo ummadaha islaamku u dabaaldegayaan si weyn ugu faraxsan yihiin maalintan ayaa haddana waxaa jira boqolaal qoys oo aan ka qayb galeyn farxadda iyo dabaaldega ka socda dalalka islaamka magaalada Burco waxaa ku nool boqolaal qoys oo ay abaartii soo martay geyiga Soomaalidu ka cayraysay hantidii ay lahaayeen oo ahayd xoolaha nool kuwaasoo ku sugan dhowr kaam oo ku yaala hareeraha magaalada Burco deegaanka Aadan Saleebaan waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ku jiraan dadkaasi soo barakacay kuwaasoo aan haysan cunno hoy iyo biyo caruurtooduna waa kuwa aan farxadda la qaybsanaynin dhallaanka caalamka islaamka maadaama aanay haysanin waxay ku ciidaan mana awoodaan inay helaan waxbarasho iyo adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxaanu qarka u saaran yahay deegaankani inay ka dhalato macaluul sababi karta dhimashada dhallaanka iyo haweenka gudoomiyaha deegaanka Aadan Saleebaan ee waqooyiga bariga magaalada Burco Mukhtaar Axmed Cali ayaa sheegay in barakacayaasha deegaankaasi ku sugani ay u baahan yihiin gurmad degdega waxaanu baaq u diray hay'adaha samafalka iyo ummadaha islaamka inay degdeg ugu soo gurmadaan boqolaalka qoys ee ku jira xaaladda cunno yarida iyo hoy la'aanta deegaanka Aadan Saleebaan dadka baahan ee fara badan ee ku nooli in caruurtoodu ma haystaan waxay ku iidaan maalinta dadka kala faraxsan yahay caruurtoodu siinayaan maryaa u iibinayaan iyo waxay maxay ahayd ay ku noolaadaan midna ma jirto farxadda ciidda iyo reereynta maxay ahayd dadka muslimiinta ay ku ciidayaan lama qabaan way ka qatan yihiin marka waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta inay fitrada iyo maxay ahayd caruur ciidka caruurta laga farxiyo cidii ka kaalmeyn karta dadka masaakiinta ee baahan caruurtooda ciid siin karta wax siin karta maryaa u xiri karta yawmal faraxa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa qofkii maxay ahayd ka qata in ilaahay maalinta maxay yawmal qiyaamaha isagana ilaahay kaga farxiyo ay dhoobay ee xoolo ka dhamaadeen ayay dadkaasi u badan yihiin Ali Daahir Maxamed Boos TV Universal Burco.